السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل انتو wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada casharkeena afraad iyo family planning. waxay inoo joogtay casharkii ka horeeyay inaga soo tilmaanay saddex farsamo oo common ah oo loo isticmaalo waxa la yiraahdo periodic abstinence ama periodic abstinence methods oo aan ku sheegnay saddexna ama saddex tallaabo aan sheegnay oo loo isticmaali karo waxyaalaha jadwalinta galma la'aanta ama in galmada la iska ilaaliyo si looga hortago inuu yimaado uur. waxaan soo tilmaanay inuu yahay rhythm ama calendar method, midka kalena uu yahay basal body temperature, midka kalena uu ahaa cervical mucus ama ovulation methodska. saddexda ayaan soo tilmaanay. midka koowaad rhythm ama calendar method baan ku tilmaanay habka isticmaalka jadwalka. waxaan u jeednaa in la isticmaalo taariikh lagu saleeyo xilliyada galmo la sameyn karo iyo xilliga aan la sameyn karin. macnuhu ka dambeeyana uu yahay xilliga uur la qaadi karo iyo xilliga aan la qaadi karin. midka labaadna wuxuu ahaa in la sameeyo basal body temperature ama BPT meter wax la yiraahdo oo lala socdo isbedelka ku imanaya heerkulka jirka xilliga uu yimaado dhiigga caadadu ama menstruationka dabadeed. waxaa intaa raaca oo saddex noqonaya waxa la yiraahdo cervical mucus ama ovulation methodska. habkan wuxuu noqonayaa in lala socdo ama lagu baraarugsanaado oo la ogaado xilliga ay diyaar tahay ugxantii oo haddii galmo la sameeyo lala kulmi karo uur ama uur haween ay qaadi karto. saddexda midka koowaad ayaynu ku falanqeyn doonaa marka casharkeenan, sidaa awgeed aynu isla eegno. calendar oo rhythm method isticmaalka jadwalku waa sidan isagu. waxaan odhanaynaa this method is the most widely used for periodic abstinence techniques. waa habka ugu ballaaran ama habka si weyn loo isticmaalo marka laga hadlayo periodic abstinence techniqueska, xilliga la iska ilaalinayo ama farsamooyinka loo isticmaalayo in la iska ilaaliyo galmadii ama la noqdo abstinence aan wax galmaa la sameynin. The calendar method is calculation based approach. waa hab lagu xisaabinayo lagu calculate gareynayo where previous menstruation cycles iyadoo la isticmaalayo dhiiggii caadada ee hore. macnaha waxaa loo jeedaa sida uu ahaa dhiigga gabadha ka iman jiray ee bilaha ah are used to periodic fertility and the last fertile day, iyada oo markaa la isticmaalayo la xisaabinayo maalinta ugu horeysa iyo maalinta ugu dambeysa ama fertility and last fertile day-ga, maalinta ugu horeysa ee taran iman karto ama uu la qaadi karo maalinta ugu dambeysa. in future cycleska marka in future menstrual cycle iyadoo kale laga duulayo oo lagu xisaabtamayo sida ay ahaayeen kuwii hore kuwa futureka mustaqbalka laga eegayo dhiigga caadada waxaan ka hadlaynahay. sidoo kale this method requires a good understanding. habkan aynu ka hadlaynay xisaabinta ama isticmaalka taariikhda ama jadwalka wuxuu u baahan yahay good understanding, faham fiican ayuu u baahan yahay oo ah in la fahmo the fertile and infertile phase, xilliga ama wejiga uur la qaadi kara iyo xilliga aan la qaadi karin of a woman's menstrual cycle iyadoo marka la isticmaalayo wareegyada dhiigga caadada ee haweeneyda. waxaa sidoo kale imanaysa what do you know inaan isweydiino markaa about the regular and irregular menstrual cycle. haweeneydu horta maxay ka garanaysaa ama ma og tahay dhiiggeedu inuu yahay irregular iyo inuu yahay regular, inuu regular yahay iyo inuu irregular yahay, inuu joogto inaan joogto ahayn. waa maxay markuu regular yahay ama uu joogto yahay? macnaha waxaa loo jeedaa inuu bil kasta xilligeeda yimaado. A regular menstrual cycle is when monthly bleeding happens. waxaan odhanayaa regularku waa marka uu dhiigga haweeneydu si bila u yimaado every month, bil kastaba, or every 28 days ama 28 maalmoodba mar. aniga irregular marka uu irregular yahay ama aanu joogto ahayna menstrual cycle ama dhiig wareegeedka caadada ee haweeneydu is when monthly bleeding is variable. waa marka uu dhiigu bilaha kala duwan yahayo
from month to month علشان bilba uu xilli ka imanayo. For example, it can vary wuxuu ku kala duwanaan karaa from 25 to 32 days in same women. waxaa yimaada oo dhacda mararka qaar noqdo 25 ilaa iyo 30 inta u dhaxaysa inuu noqdo. marka hore waxaan idhi waa inuu every 28 days kiiba yimaada ama bil kastaba waa inuu yimaada marka regularka yahay. marka aanu regularka ahayna waa inuu noqdo bil ba xilligu doono yimaado kala duwanaado 25 ilaa iyo 32. sidaa awgeed habkan calendarka ama xisaabta bilaha ah ama la isticmaalayo taariikhda wuxuu noqonayaa in ka ugu ballaaran ee laga isticmaalo in hababka abstinence-ga ama in la iska ilaaliyo galmada la iska ilaaliyo si aan loo qaadin. calendarku marka wuxuu u baahan yahay in noqdo xisaabinta hababka iyadoo laga duulayo previous menstruation-kii ama dhiig caadadkii hore haweeneyda, sidoo kale loo isticmaalo maalinta koowaad iyo maalinta ugu dambeysa iyadoo laga duulayo mustaqbalka wareegga dhiigga caadada haweeneyda. sidoo kale waxaan sheegnay inuu u baahan yahay faham fiican oo ah infertile phase-ka iyo fertile-ka iyo infertile phase-ka la kala fahmo. sidoo kale waxaan waa in muhiimaddu waxay tahay in haweeneydu horta garanaysaa maxay ka og tahay ama inaad maxaad ka og tahay inuu joogto yahay iyo inaan joogtaan dhiiggaaga caadada haweeneyda. markuu joogto yahay waxaan ku sheegnay inuu yahay xilliga ay haweeneydu bil kasta hesho dhiigga ama 18 maalmood mar. irregularka waa markuu kala duwanaado bilba ama bil ka guuro haddana bisha kale uu guuro oo macnaha waxaa dad bisha 18 ka iman jiray ama 25 bisha iman jiray haddii uu dad bisha soo socota ama 22 maalmood gaadho waa joogto maaha bay ka dhigan tahay. haddaba it's important waxa muhiim ayaan leenahay for you know inaad ogaato that before relying inta aad aaminin on this method waa habkan ka hadlaynay jadwalkan ama taariikhda inta aad aaminin a woman needs to record waa inay haweeneydu record garayso ay qorto the number of days tirada maalmaha in each of her menstrual cycle for a period of at least 6 to 8 months 6 ilaa iyo 8 bilood. waxaan odhanaynaa waa inay haweeneydu tirada maalmaha dhiig caadeed kasta ay xisaabiso ugu yaraan 6 ilaa iyo 8 bilood. macnaha 6 bilood ilaa 8 bilood waa inay xisaabiso. ujeedadu waxa weeye markaa inuu joogto yahay in kala garto. remembering that the first day of menstrual bleeding iyadoo markaa xasuusanaysa ama la xasuusan yahay maalintii koowaad dhiigga is always continue as day 1 iyadoo markaa laga bilaabayo maalinta koowaad bilaabmay. see the following on the word adoo markaa egg on how to advise the woman using calendar meter. haddaba habkan markaa isticmaalna baraneegna sida loo waaninayo ama loola talinayo haweeneyda xaaladan isticmaalaysa ama habkan isticmaalaysa. waxaan sameynaynaa qaabkan baan adeegsanayna advice to woman using a calendar meter kuwaani oo taladan si haweeneyda isticmaalaysa habka calendarka ama taariikhlaha ah. for irregular cycle haddii uu yahay dhiiggaasi ama caadadeedu uu ahaa mid aan joogto ahayn identify the longest and shortest cycle. waxaa muhiim ah in la aqoonsado maalintii ugu dheerayd ama muddada ugu dheer uu yimi iyo sida oo kale marka ugu gaaban oo la record gareeyo over 6 to 8 cycles. sidaan soo sheegnay in la xisaabiyo ama la aqoonsan yahay longest waxaan u jeednaa alashan waqtiga ugu dheeraa ee uu yimi dhiiggaas. waqtiga ugu dheer yimaado wuxuu noqon karaa tusaale ahaan 29 ayuu gaadhay maalmood marna 26 wax saas u noqon karaa. marka ugu gaabno saas leego maanta ugu hooseysa alashan hadduu marka ugu dheer yahay 25 maalmo qaar uu yimi 25 ka noqon meesha ugu hooseysa. marka iyadoo la record gareynayay ama la soo qoray la soo diiwaan gelinayay over 6 to 8 cycles 6 ilaa iyo 8 wareeg. macnaheedu waxa 6 ilaa 8 wareeg waxaan u jeednaa waa 6 bilood macnaheedu waayo bil kasta mar ayuu yimaada dhiigu. maxaan markaa u baahanahay subtract 18 from shortest cycle. waxaynu markaa sameynaa inuu ku subtract gareynaa ama in kala jarayna inagoo isticmaalayna 18 oo ah qaacido jeebkan ku siino. maalinta ugu yar ayaynu ka jaraynaa 18 kadibna waxaa noo soo baxaysa gives the first day of fertile phase
maalinta koowaad ee uur la qaadi kara ama taran iman karta maalinta tahay. sidoo kale waxaan sameynaa subtract 11 from the longest cycle. 11 ayaan ka jaraynaa taariikhdii ugu dheerayd ama xilligii ugu dheeraa ee uu yimaado dhiig caadadu, taasoo iyaduna siinaysa give us the last day for fertile phase time, taasoo ina siinaysa marka maalinta ugu dambeysa ee uu raqaadi karo. macnuhu waxa weeyaan marka aynu 18 ka jarno maalintii ugu yarayd waxa inoo soo baxaysa maalinta koowaad ee ay suurtagal tahay inuu raqaado. marka aynu 11 ka jarno taariikhdii ama tirada ugu dheereed ee dhiiggaasi ku yimaadana waxa inoo soo baxaysa maalintii ugu dambeysay ee uu raqaadi lahaa. macnuhu waxa weeyaan 6 bilood ayaynu soo sameynaynay, tusaale xagga hoose ku tilmaami doonaa 6 bilood ama 8 bilood baan soo record gareyno bil kasta mar buu imanayay 26 27 28 29 26 wax noocaas noqon kara. sidaa awgeed aan xagga hoose ka eegno avoid sex, marka waa in sexigii ama galmada la iska ilaaliyo. use a barrier meter ama la isticmaalo waxyaabaha xanibi kara spermta inay haweeneyda gasho, or use withdrawal during the fertile phase, marka xilliga lagu jiro inay taran iman karto ah halka tallaabada hore siinayso alashan waqtiga ay haweeneydu ku jirto ama ay garanayso xilligii uurka ay qaadi lahayd. waxa laga maarmaana in galmada la iska daayo ama la isticmaalo barrier meterska, waxa la yiraahdo injiradii galmada loo isticmaal lahaa ee xanibayay spermta oo kale inay gudaha gasho, ama in la isticmaalo withdrawal, habka withdrawalka ee ah in galmada la sameeyo laakiin ninku xubintiisa taranka haweeneyda kala baxo inta aanu imanin ejaculationka ama aanu wax biyaha ka imanin. marka fertile phase-ka inta lagu jiro waa in xisaabta noocaas la sameeyo, galmada waa in la iska daayo ama waa in injirada galmada la isticmaalo ama waa in withdrawalka la isticmaalo, habka inaanay manidii ama biyihii ninku gelin haweeneyda la isticmaalo. aynu eegno marka habkan aynu ka hadlaynay ah xisaabinta 6 bilood ama ilaa 8 bilood aynu eegno. example waxaan soo qaadanaa sidan: a woman's last 6 menstrual cycle were, haweeney ayay ahayd 6deedii caado ee la soo dhaafay sidan 28 iyo 26 29 29 and 27 days. bishii koowaad ee recordka bilowday 28 uu yimi, tii labaad ay diiwaangelinta bilowday ama recordkan 26, bishii saddexaad 29, bishii afraad 27, bishii shanaad 29, bishii lixaadna 27. macnuhu waxa kala duwan waxba uma dhaxeeyaan, waa inta u dhaxaysa 26 ilaa 29, laba maalmood ayaa u dhaxeeya 6 bilood ee xiriirka. using this information, hadaba isticmaalka macluumaadkan calculate them instruct, waa inaynu ku xisaabino isla markaana aynu u sheegno aynu barno haweeneyda ama u tilmaano here about how to use the calendar method, sidii ay u isticmaali lahayd habka xisaabeedka jadwalka ama taariikhda si ay u isticmaali lahayd. waayo 6 bilood bay haweeneydani bilowday inay recordka samayso. bishii ugu horeysay recordka bilowday 26 uu ka yimi dhiigu, tii labaad 26 tii saddexaad 29 tii afraad 27, tii shanaadna 29, tii lixaadna wuxuu yimi 27. sida awgeed information wuxuu naga caawinaya marka aynu calculate garayno isla markaana aynu instruct garayno ama haweenka aynu barno sidii ay u isticmaali lahayd calendar methodka. macnuhu waxa weeyaan maalmihii baa halkan ka soo baxayaan eegno sidee marka sidoo uurka ugu hortay karaa daba habkan ka hadlayna sidee ayuu uurka ugu hortay karaa ileemka waxba ma inaan dawana ma inaan isticmaalin waxna ma isticmaalin taariikh ma isticmaalin iyo xisaab la soo geeyay aynu eegno marka prevent pregnancy hadaba sidoo uurka ugu hortay karaa habkan jadwalka ah wuxuu ugu hortagaysaa soo socoto oo waxaan niri haweeneydii maalintii ugu yarayd ama maalintii ugu gaabnayd bisha xilligii ugu tirada ugu yarayd yimi wuxuu noqday 26, tii ugu badnayd 29, 6 bilood soo xisaabinay. marka heer shortity cycle-keedii haweeneyda wuxuu ahaa ama waqtigeedii ugu gaabnaa ee dhiigga ku hesho wuxuu ahaa 26 maalmood. heer longest cycle-keedina wuxuu ahaa 29 days, 29 maalmood buu ahaa. waynagii isku ogeyn inaynu taariikhda ugu gaaban ka goyno 18, ta ugu dheerna ka goyno 11. marka first day of fertile phase muxuu noqonayaa haweeneydii
lixda bilood aynu soo xisaabinay ee taariikhda ugu yar ee dhiigu kaga yimi ahayd 26 taariikhda ugu dheer ee dhiigu kaga yimina ay ahayd 29 hadda waxaanu u baahanahay inaynu ogaano first day-ga ama maalinta ugu horeysa ee uu iman karo fertile ama taran ama uur haweeney qaadi karta inuu yahay 26 laga jaray 18 macnuhu waxa weeyaan 26 oo ahayd maalintii ama taariikhdii ugu yareed ee haweeneyda ay dhiiga ku hesho ayaynu ka goynaa 18 kadibna waxa inoo soo baxay 8 macnuhu waxa weeyaan 18 kan waa qaacido aynu iska leenahay oo jeebkan ku wadana last day from fertile phase kan wuxuu noqonayaa 29 minus 11 oo la mid ah 18 macnuhu waa maxay halka 29 baan ka goynay 11 isagana sidii si leeg jeebka aynu ku wadanay 18 marka soo haray haddaba maxay noqonaysaa ayaamaha ay haweeneydan 6 bilood ee xiriirka soo xisaabinaysay dhiigeeda ay uurka qaadi kartaa tusaalaha aynu sideenaa waa sidanoo therefore the fertile period of this client waxa uu noqonayaa maalinta ama maxay ahaayay taranteedu waxay noqonaysaa sidan haweeneydan is between the 8 to 18 days wuxuu noqonayaa maalinta 8aad ilaa 18aad inta ay uur qaadi karto ee iska ilaalinayso galmada so she should avoid sex during this period to prevent pregnancy waa inay ayaamahan haweeneydu iska ilaaliso inay galmo samayso si ayna uur qaadin ama waa in ay isticmaasho sidii markii hore aan soo sheegnay waxyaabaha barrier materialska haddaba waxaan kula talinayaa qof kasta oo daneynaya casharkan inuu fahmo ama si fiican u fahmi waaya inuu qaybta commentiga dhigo su'aasha uu qabo ama facebooka uu ka soo diro su'aashiisa si aan u sii faahfaahino halkaa markaa waxa ay nooga soo baxday uurka in la iskaga ilaalin karo haweeneydu iyadoo isticmaasha hab jadwal ah ama hab xisaabeed isla markaana ay og tahay muddo 6 ilaa 8 bilood haweeneydu dhiigeedu sidoo yahay inuu joogto yahay iyo inaan joogto ahayn haddii uu joogto yahay waxaynu soo xisaabinaa markaa imika 6 bilood aynu tusaale soo qaadanay 6 bilood taariikhdii ugu gaabneed waxay noqotay ama taariikhda ugu yareed haweeneyda dhiig ay ku heshaa wuxuu noqday 26 ta ugu dheerna 29 tii ugu gaabneed waxaynu ka goynay 18 tii ugu dheereedna waxaynu ka goynay 11 sidaa ogeed waxaanu nidhi haweeneydu mar haddii ay garanayso xisaabta noocan oo kale ah oo noqonaysa tusaale ahaan tan imika aynu xisaabinay wuxuu noqonayaa maalinta tusaale ahaan dhiiggii uu dhammaaday oo 26kii bisha intuu bilaabmay uu dhammaaday tusaale ahaan waxaynu odhan karnaa 1 ilaa 8 aan idhaahdo 1 ilaa 7 dhiiggaa socda tusaale ahaan 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 iyo 18 maanta 18aad intaasoo maalmood oo tusaale noqonaya maalinta 8aad 9aad 10aad 11aad 12aad 13 14 15 17aad iyo 18aad waa 12 maalmood waxay galmo haweeneydu sameynayso iska ilaalinaysa ama isticmaalayso cuntada galmada loo isticmaalo example ka labaad baynu eegaynaa ama tusaalaha labaad ee it client comes to you and ask about using the calendar method to prevent pregnancy haddii ay timaado haweeney ama bukaan ama macmiil doonaya inuu ogaado xaaladda noocan oo kale ah maxaan u baahanahay when you ask her about the history of menstrual cycle tusaale ahaan markaad weydiisay historyga dhiig caadeedkeeda over the last 6 months ee 6 bilood ee ugu dambeeyay she tells you it comes regular every 30 days waxay ku sheegtay inuu bil kasta yimaado 30keeda macnaha inuu 30 cisho mar yimaado calculate the fertile period of your client and avoid sex her to what in order to prevent pregnancy waxaan markaa u baahanahay client-ga markaa aad kula taliso her when to avoid sex aad kala taliso xilliga ay galmo ka hortagayso ama iska ilaalinayso inay galmo samayso in order to prevent pregnancy inagoo weegina markaa inay uur iska ilaalisaan uur qaadin su-aashii waa tan tii hore waxaanu isticmaalaynay
qaacidaan wadanay laakiin tan waxba kaga duwan tahay regularku wuxuu noqday oo regular buu noqdo maalin maba dhaqdhaqaaq uma leho bil kasta wuxuu yimaadaa bay ka dhigan tahay ama 30 cisaba hal mar buu yimaadaa marka halka maxaa ka soo baxay regular cycle wuxuu noqday sidan waa 30 laga jira 14 oo la mid 16 macnaha 30kii ay 14 ka goynaysaa 14 kaas 16 baa ku soo haraysa hadaba halkan soo qaado first day of fertile phase wuxuu noqonayaa 16 laga jira 7 u fiirso 16 laga jira 7 todobadaas waxa weyn waa todobadii uu dhiigu socday ugu badnaan 9 baa ka soo haray last day of fertile phase wuxuu noqonayaa 16 oo loo geeyay 2 oo la mid 8 macnaha waxa weyn 16 ay halka markii hore 16 baynu ka jarnay 7 9 bay noqotay laakiin halkan waxa ka soo baxay maalintii ugu dambeysay doonayna ogaanadii 16 loo geeyay 2 halkan daba hoose eeg therefore her fertile period between the 9 and 18 days and she should avoid a sex between these days of cycle haweeneyda marka goormay galmo iska deynaysaa maalinta 9 ilaa 18 ayay galmo iska ilaalinaysaa bil kastaba 9 ilaa 18 keeda waa marka uu dhiigeedu yahay ku joogtaa علشان صدق عيسى مريم هذا وحياتها إنه 10 كان مهم إنه يهاي لكن فهم كيسة أيام مهمة ما قاعد كستود أنا سمر لبعضهم كل علينا يا فيسبوك يقيبت كومنتيجا حد ماشي أتكهرسو وحنوبا هنا إن كسو في العليسو هدي أي تمادو واحد وباهنتها أو فاهين إن شاء الله أنا قلنا وحنا نسكت إن كسو جوابه وقفل بس برايك في ده أما جارة أنا قو فاهيه إن شاء الله وحي سؤالنا سداه كلا قادرنا وهالكاس أيام كتوتشين يا 10 كيننا أفراد أديات بما سنتين قف كستا أو سو جارة مقال كان وحكوا السنة يا إنه channel كان سبسكرايب كريه إسلام مركانا وحي تلاقيه تصالح ونوهايو نقول قيبت كومنتيجا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.